Bismillahir Rahmanir Rahiim. Assalaamu calaykum. Kulantiyaha bundawada idil ahaantiinba waxaad ku soo dhawaataan xalqadii koobaad ee taxanaheena cusub ee irbadii eelka reebtay. Sheekadan waxa qoray Qora Cabdillaahi Saal Axmed. Qaybtan waxay ku bilaamaysaa sidan: murugo oo idil ayaa igu dhan. In ka badan intaan naftayda u cadhaysanahay ayaan bulshada u ciil qabaa. Urugada iyo urkutaalladu se waa igu kaligay. Sidaan qabo ma jiro qof soo jeeda xilligan dambe. Waase jaanis fiican oo aan naftayda kaga takhalusi karo. Ha ila yaabin 7 bilood ee u dambeysayba saasaan ahaa. Halgan ayaa ani iyo naftayda noo dhaxeeyay. Xidhiidhada iska hor imanaya waxa ugu cuslaa loolanka wadnaha iyo maskaxda ee dhexdeeda ku hirdamaya. Go'aanada culus degdeguna ka muuqdo ee qalbiga ka imanaya ayay maskaxdu kala shaandhaynaysaa. Caqli ku darna tiraahdaa. Caqli ku dartaa muddaan mawdka kaga baxsanayay. Habeen kasta tashigaasaan la noolahay. Hal rajase ayaa waa bariga ay gaarsiisa. Hal kali ah. Taasina waa arkida naftan aan agtoogeeda xiiseeyo. 7 biloodba inaan dartii u noolaa iyo in mawdku iga soo habsaamay ayaan garan la'ahay. Subaxii isma aragno oo faquuqa walbahaarku igu abuuray ee bulshada igaga imanaya ayaana kala qariyay. Galbaha qaarse ayaan ugu tagaa cusbatalka xaafadda ee dhawaan loo soo wareejiyay. Isaga ayaa igula taliyay imaashiyaha galabtii. Naxariistu waa mid ka mid ah dabeecadihiisa wanaagsan ee tirabeelka ah. Shalay aroortii ayaan u tegay. Foolkayga ayuuna murugada ka akhristay. Sidee wax u jiraan ayuu igaga naxsaday. Anoo weli aamusan ayuu wadadii baad soo martay yiri. Madaxan u ruxay. Dejinta xaaladayda ayuu isku hawlay. Isaga oo niyadda ay dhisaya. Jahliga bulshadana dhinacyo badan iga tusaya. Waxaas oo dhanna waxaan ku ilaawa kaftanka iyo dhoolla cadayntiisa bilaashka ah ee aan ka waayay kuwan dudaya ee aad moodid colaadinteeda inay u bahoobeen. Saaka waxa iga cadhaysiiyay haddii uu i weydiiyey. Waxaan u sheegay inaan marayay wadiiqada yar ee xaafadayda ka dambaysa. Waxaa meel hortayda taagnaa 3 hablood oo aan laba garanayay. Daris baanu nahay. Waxaanan ka warqabaa inay dhigtaan jaamacadda Aqbala. Kulliyadda caafimaadka ayay dhigashadeeda ku guda jiraan. Inantan saddexaadse ma garanayo. Kullay waa isku jaamacad oo waa kuwa baskii sugaya. Waa taa ayaa igu soo duushay anoo ag maraya. Ayuu hadday igu jawaabeen iyagoo talleecadoodu la socoto. Waxay ugu halcelisay waa tii bogtay. Inantii cusbayd baanay u sharaxday xanuunkayga iyada oo u haysata inay la foqayso. Codkeedu buu isoo gaadhayay. Cadhadiina ma ku leexataa ayaa igu soo dhacday. Haddana talooyin badan oo dhakhtar i siiyey ayaa maskaxdayda ku soo dhacay. Waxaan naftayda ku qanciyey inaan hadalkaygu waxba tarayn bal buuq sii abuurayo. Waxaan kaloo sii ogahay cadaalad xumada maxkamadda bulshadu isaarayso iyo eexda ay igula kacayaan. Dhinac baan isu barbariyey anigoo darbiga raacaya iskana dhigaya in aanan maqlayn hadalkooda. Kolkaan Axmed u sheegayna intii karaankiisa ahayd wuu i dejiyey. Xanuunku qadar eebbe in uu yahayna wuu i xasuusiyey. Axmed waa qofkii ugu horreeyay ee iga waraysta xaaladayda baryahan dambe. Indho shaki leh iguma eego. Sida uu ii duganayo ayaad ka garataa in uu dhuuxayo hadalkayga. Taasi waa ta igu dhiirisa inaan u xal warramo. Waan hubay qof kasta oo bulshada ka mid ahi inuu khalad igu xukumayo. Mid nafteeda dayacday, waraabayaasha baylah u noqotayna igu caayayaan. Marnase halkan ma soo dhigan. Mihnadlayaal caafimaad baa ku takooraya. Shaqaalihii Aqbala ha u badnaadeene. Axmedse markaan u imid ee su'aalaha hordhaca ah i weydiiyeyba waxaan dareemay nafisaad. Waxaan gudagalay sharaxaado aan baryo ku dhiiran waayay. Markaan soo hadal qaadana la odhan jiray waa beenteed. Su'aalaha aan abid layga rumaysan ee uu madaxa u ruxay waxaa ka mid ahaa: sideed xanuunka ku qaaday? Goormo ayaa lagugu sheegay? Iyo qaar kaloo badan oo igu dhalinaya bilaabidda sheeko dheer. Sheeko iga dhigtay tuke baalcad. Waxaanan ugu bilaabay sidan: sheekadu maxay ku bilaabantay? La soco qaybta inoo xigta qaybteenan maanta.